soddon sannadood baanu samraynay kamana dul qaadanayno kuwa shirbeeleed baa lagu baaqayaa haddaa shirbeeleed ku baaqdaanna shirka beesha dhexe oo gaara iyo shirka afarta beelood ee darafyada oo gaara buu noqonayaa kuna dambaynayaa laba dawladood baynoo dhisanayna in magacana la sheegto nuxurka iyo maskabka iyo taladuna ay hal beela gacanta ugu jirto bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo ay bisha Agosto tahay 31/2020 waxa ka hadlayaa arrimo dhowr qodob ah marka ugu horeysa waxaan halka baaq uga dirayaa maamulka gobolka iyo degmada waxaan leeyahay ururka Laascaanood waa kaydka biyaha Laascaanood dad iyo dunyaba dhibaatada ay ka hadleen odayaal hore oo ah in niistii biyaha qabanaysa la geliyo cagaf waxaan leenahay habeesha iyada ah waa in wax laga qabtaa waayo wixii dadka hanti iyo gumara waa la ilaaliyaa oo mas'uuliyad baa cid walba ka saaran inta markaan ka bariyan waxa ka jiray Soomaaliland muran siyaasadeed oo u dhaxeeya xisbiyada iyo qolada xukuumadda murankaasi intii uu soo socday oo dhowr bilooda wuxuu yeeshay wajiyo badan marka ugu horeysa Soomaaliland magaca waxa la yiraahdaa afarta beelood oo waqooyi degaa way wada leeyihiin dadka darafyada oo aan hayn beesha dhaxana waxay awalba aaminsanaayeen ogaayeen una muuqatay in magacana la sheegto nuxurka iyo maskabka iyo taladuna ay hal beela gacanta ugu jirto buuqa ugu badan anigu waxaan u arkaa waxa ku soo kordhay ee maanta qaylada ugu badan ay ka baxaysaa inay tahay saddexda urur ee labana harti uu furtay midna samaroon furatay ee darafyada marka ugu horeysa horta taladu miiska wax lagu qaybsanayaa laba meelood bay ka godaa madaxtooyada maxay afar meelood madaxtooyada guurtida iyo labada xisbi ee mucaaradka ah gudida commissionku waa 7 xubnood 7 xubnood laba waxa soo xulo xisbiyada labada xisbiye mucaaradka ah labadooda raas bay labada xubnood kala siiyaan waadna arkaysaa inay tahay nin waliba waxa uu wax ku doonayaa wuxuu gacanta reerkooda ugu qabto afarta imika dib loo celiyayna laba waa labadii darafyada waxaan u aragnaa celinta la celiyay sababaynteeda aan u haysanaa labada xisbiye mucaaradka ah maantana waxaan leeyahay nimanka darafyada ee furtay ururada ee aan hayn beesha dhexe haddii la waayo sharci iyo nidaam lagu kala baxo oo la waayo inay soo la ogolaado xisbiyadiina afartiina beelood kale waxa weeye haddaan lagu kala bixin sharci iyo dastuur waxa weeye inaynu tashano afarteena beelood kale waana la waayaa Soomaaliland ma jirayso haddii aan la helin wax la wada leeyahay oo hadda la bilaabo oo cid waliba ay taladeeda iyo maskabka ay yeelanayso iyo saami qaybsiga ay yeelanayso aanay miiska soo wada fadhiisan taa intaas leeyahay qolada xisbiyada furatayna waxaan leeyahay haddii ay tahay suuroobi weydo Samatar Professor Samatar Ataash Salebaan xag la toosiyay dhammaan siyaasiyiinta beelaha darafyada caalamka waxaad u sheegaysaan waxa aan waxba ku lahayn ee ka maqnaa Soomaaliland miiskeeda talada inay yihiin afarta beelood ee darafyada qaylada ta keentayna ay koogu tahay qolada beesha dhaxana waxaan leeyahay bariyahan waxaan maqlayay siyaasiyiin meel kasta oo ama burcaha ka hadleen ama hargeysaha ka hadleen muuse waxa dhaamay ama waxa uu samaynayo maxamed siyaad barre ma samay jirin horta marka ugu horeysa waxaan idin sheegayaa nin kasta oo madaxweyne sheegta oo siisam dawliga madaxweyne ka noqda qabiil wax kuma laayo waxna kuma xidho systemka dawladnimada ayaa leh oo waa wax dawladnimadu leedahay marxuumka 26 sano mootanaan Allah u naxariistay waxaan leeyahay halooda iyo hadalkiisa hadduu wixii uu qabtayna waa wax adduunku intuu jira muuqanaya wixii uu dawlad baana waxyeelo iyo waxtar bay leh nin kursi madaxweyne ku fadhiya waxa ku geystaa waa dawladnimo waa maantana waa idiin caddahay inaan qabiilnimo nin wax ku leeyahay nin wax ku xidhay dawladnimo la isku xidhay la iskuna dilayo taana intaasaan leeyahay waxaan kaloo leeyahay war maanta ninka diida
aan wax wada yeelanno oo aan wax wada qaybsanno oo aan miiska wax ka wada qaybsanno 30 sannadood baanu samreynay kamana dul qaadanayno kuwa shirbeeleed baa lagu baaqayaa haddaa shirbeeleed ku baaqdaanna shirka beesha dhexe oo gaara iyo shirka 4 beelood ee darafyada oo gaara buu noqonayaa kuna dambaynayaa laba dawladood baynu dhisanaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.